بسم الله الرحمن الرحيم كون والصومالية كوجت تشالك السعودية العربية قال أهان من دقة نجران بل وحن الله لنا ظاهر والله ما صنت هاي وحن كم ذا هاي مسكينين تهجرتوا عم بمحادث ويجالك النجران وحن طبعا إن إلا ضبطن أو محن كنا هاي دبعت ضبطن باكجرتوا نقول في ونقول دعاء وان هيا تكلمت ضبطن وحاجر جالك قوة شيء وحوي يعني نتلو وحاكلوا جرتوا ضد وحوي أنا حق الله أنت تبصرنا شان سنة أسكت أحفر اليوم arrimaha soo dhan iyo cabashadaas oo dhan waxaan gudbinaynaa madaxda dawladda Soomaaliya iyo waxa weeyaan mas'uuliyiinta iyo waxa weeyaan cidda ay khusayso inay wax ka qabato dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baan nahay oo waxa weeyaan meesha ku dhibaataysan inay arrimahaanadan cidda khusayso oo maxaan ku raadayay Soomaalinimo ah arrimahaana si bilaadino loo galo ayaan rajaynaynaa cid kasta oo daawatana waxaan leenahay si gaarsi cidda ay khusayso iyo madaxda Soomaaliya ما شاء الله ما شاء الله waxaan nahay dhalinyar ku jirta jeelka muddo in badan ah ku jirtay ma naqaano dal shisheeyaan ku jira ma naqaano maxaan ku raahday meel aan maxaami ka qabsano af carabi ma naqaano cid noo doodo oo maxaami noo qabato ma haysano in badan waan soo cabanay waxaana la tabar inaan kamaradaas ka soo duubno in badan waan soo cabanay dil baan ku xukumanahay intayada u badan dil baan ku xukumanahay waxna lagu xukumay in wax lagu xukumay oo maxaan ku raadayay dadka dambiyada annaga loo haysto la midka loo haysto dadka dambigaas qalto lagu haysto maxaamiyay qabsadaan waa intooda badan waa dad carab waa dad maxaan ku raadayay qaabka maxaamil loo qabsaday yaqaana waa dad af carabi yaqaana annaga Soomaali baan nahay ma naqaano qaab meel aan maxaamil u marra ma naqaano dhibabkaas aan haysta maxkamadda markana la geeyo waxna lama weydiiyo meeshan suulka saaran baan ilaa meeshan suulka waan saaraa waana ku qasbanahay inaan suulka saaro haddaan saaro weynana waana la garaacaya ما شاء الله هذا كور ما أنا أذكر سفارة وقلت ما جالك السعودية العربية بس دي سنة كتيرة أنت الدولة دن محنكر على نبض ينول أي ودك قبضتي أنا بأرجع محنكر على سفارة دي لدقائق دولة نمو أو نسوي رجالي إن كستهم هالمرنوي ماذي وحرمنا عدة كيف هذا لا أنا هذا waxaan salaamayaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka ugu horeeyay madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre waxaan salaamayaa wasiiradda dhalinyarada isboortiga waxaan salaamayaa wiil kale oo sargaal ah oo masaaciday afna dhamaan ummadda Soomaaliyeed xubnaha dawladda ciidamada golaha baarlamaanka wasiirada dhamaan waan salaameynaa horta annaga soo deyn waxaan ka rabnaa ilaahay baa horta wax soo daaya dawladda federaalka badanaa maxaabiista soo deynisay inta idin hadda joogteen madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo kida iyo wasaar Khayre maxaabiis badan baa soo deysay taasna waan idin sugeynaa annagana wadana maxaabiista gobolka Nijraan ku xiran aad baan waqti badan baan idin sugeynay sida Cabdullaahi sheegay markii la idin doortay oo nin bulshada noo yimid ayaana weyn laga joogo muddo hadda sanada waxa ku jira xabsigan Soomaalida 150 gaarayaan dhamaantood 80% waxaan ku kulmanahay dib mar horena oo soo kulmay dil bila macna oo meel loo raac lahayn yani dil leesay dambi aan lahayn iyo طريق badana Soomaalidu waxay ka soo galeen طريق la yiraahdo gobolka Nijraan yani wadada Nijraan ee xuduuda meel dagaal ka soo gashay meel dagaal darooga iyo dagaal baa laga soo gudbiyaa oo Yemeniin baa soo marto ama darooga soo waxaan u lahayn ama ka dagaalantan lagu haysto baa sheegay madaxweyne shaqan ku meelkin ra'iisul wasaare shaqan ku meelkin arrimahaas shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nin wili bari dhaxdaas maxkamadda aan isku aragno buu in bila macna baa lagu xukumayaa dawladihiinu doodaan oo maalaha shan dawladihiinu ay iga sii daayaan waxaan kala hayaa arrimo kale oo sir baan hayaa aan ka hadlaya inkastoo fiidiyowgu idinka ku socdo sir saa u weyn ma madaxweyne sir waaweyn kama adkayno laakiin aad baan idin salaameynaa waxaa ka mid ah arrimaha cudurka kaliya jeel qayb kale oo nagu dhigan oo la yiraahdo qaybta shanaad oo ku dhacay dad carab ah ku xiran madaxweyne waxa lagu yiri madaxweyne su'aale ku dhinta shalay sheeko sir ay soo gaadhay waxay aniga ahmed ahaan soo gaadhay 35 inay marayso dhaawac meesha ku jira cudur ku dhacay baan u jeedaa cuntada baa loo geeyay dhakhtar lama geeyo annagana hadduu berri nagu dhaco Afrikaan Ethiopian aan nagu jira hadduu berri nagu dhaco cuntada halkaas wili uu banahayaa qaarkeen uu nahayaa aniga sura hadlay inuu ugu dhacay baan u malaynayaa 10 cisho ma annag ra'iisul wasaare dhamaan golaha baarlamaanka waan salaamaynaa meeshan waxaan rabnaa dawlad ahaan baan nagu sii deyn karnaa
dowlad ahaan inaan ugu soo deysaan oo meeshaan naga soo deysaan balaan hawlahan inaad gashaan si u dhaqso badan way ku dhibaataysan yihiin hadday wasiirada dhalinyarada aragtana waxaan rajaynaynaa inaan maasha allah waan soo gaabinaynaa hadalkan soo gaabinaynaa intan waa in halkan qodfad wada degan بسم الله الرحمن الرحيم والله وسيله dhalinyarada ku sheegeen meeshan dhibaato xun baa ka jirta waxa weeye xilliga kolada uu dhacay ilaa hadda waan isku xareysanahay wax aadala male dawo xitaa fiican male warka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala baaqayga inay kasoo jawaabtaan xil baa saaran dadka xilkiisa ka saarayaan baa waxa weeye arrintaas aad xil isaga saaran dad fara badan oo dulman baa jira dad waxaa jira dambi dadka inta badan horta waa dulman yihiin sidooday ku dulman yihiin xuquuq aan akal iyo biyo iyo sharaab ayna male xuquuqul insaankii kale meesha waa ka tegey waanu yaabanahay shahaadana ku waalan dadka xanuunsani dawana ma helaan sida xabaarka iyo eyga loo dhaqmo wax dawo ay leeyihiin male alla ku madax xanuun baan lanahay cida wax kale sida marka insha Allah taala arrintaa kasoo jawaaba insha Allah khayr insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم كون والصومالية كوجت تشالك السعودية العربية قال أهان منطقة نجران بل وحن الله لنا ظاهر والله ما صنت هاي وحن كم هاي مسؤولين تهجرتوا عن ضم حديث ويجي جالك النجران وحن طبعا إن إلى ضبضن أو محن كنا هاي تبعت ضبضن باكجرتوا نعوذ في ونقول دعاء وان هيا takaleeto dad badan waxaa jira jeelka ku waashay oo waxa weeyaan la dilo waxaa kaloo jirto dad waxa weeyaan xukun la'aan 7 sano 5 sano iska dhex fadhiyo arrimahaas oo dhan iyo cabashadaas oo dhan waxaan u gudbinaynaa madaxda dawladda Soomaaliya iyo waxa weeyaan mas'uuliyiinta iyo waxa weeyaan cidda ay khusayso inay wax ka qabato dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baan nahay oo waxa weeyaan meesha ku dhibaataysan inay arrimahaanadan cidda khusayso oo maxaan ku raadayay Soomaalinimo ah arrimaana si bilaadina loo galo ayaan rajaynaynaa cid kasta oo daawatana waxaan leenahay si gaarsi cid ay khusayso iyo madaxda Soomaaliya aad baa idin salaamay ma sha Allah waxaan nahay dhalinyar ku jirta jeelka muddo in badan ah ku jirtay ma naqaano dal shisheeyaan ku jira ma naqaano maxaan ku raadayay meel aan maxaami ka qabsano af carabi ma naqaano cid noo doodo oo maxaami noo qabato ma haysano in badan waan soo cabanay waxaana la tabaro inaan kamaradaas ka soo duubno in badan waan soo cabanay dil baan ku xukumanahay intayada u badan dil baan ku xukumanahay waxna lagu xukumay in wax lagu xukumay oo maxaan ku raadayay dadka dambiyada annagana loo haysto la midka loo haysto dadka dambigaas qalto lagu haysto maxaamiyay qabsadaan waa intooda badan waa dad caraba waa dad maxaan ku raadayay qaabka maxaamil loo qabsaday yaqaana waa dad af carabiga yaqaana annaga Soomaali baan nahay ma naqaano qaab meel aan maxaamil u marra ma naqaano dhibabkaasaan haysta maxkamadda markana la geeyo waxba lama weydiiyo meeshan suulka saaran baan ilaa meeshan suulka waan saaraa waana ku qasbanaa inaan suulka saaro haddaan saaro weynana waana la garaacaya ما شاء الله هذا كورمان أنا أذكر سفارنا وقتما جالك السعودية العربية تسديد سنة كتيرة أنت الدولة دن محنقر هذا نبض ينول أي ودك قبضتي أنا بأرجع محنقر هذا سفارة يا دقائق دولة نمو أو نسوي رجالي إنك استلم هالمرنوي ماذي وحرمنا عدة كل في هذا الهاي أنا هذا waxaan salaamay dhamaan ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka ugu horeeya madaxweynaha Maxamed Abdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre waxaan salaamayaa wasiiradda dhalinyarada isboortiga waxaan salaamayaa wiil kale oo sargaal ah oo masaaciday asna dhamaan ummadda Soomaaliyeed xubnaha dawladda ciidamada golaha baarlamaanka wasiirada dhamaan waan salaameynaa horta annaga soo deyn waxaan ka rabnaa ilaahay baa horta wax soo daaya dawladda federaalka badanaa maxaabiista soo deynaysay intaad idin hadda joogteen madaxweyne محمد عبد الله فرماجة كذا الوزارة خير محافظ بدن بس وديسين تاسنا وين يدسوين أنا جنا دانا محافظ تقول كان كرام كرام هذا وقت بدن بني يدسوين سيد عبد الصاب شيء مركز اللي ينضوطي من رسول النويم أيانا الوين لقيت شو ده هذا السنة وحاول كذا حبس كان صومالي تقول كنت مجاريان تمام تقول كذا سديت محل حكومة هيدي مرة رنا وصوت ومي دل بلا معنى أو ميل لور على هين يعني دل ليسك الدم بيان الله هين الطريق بدنا صومالي وحي كسر قلنا طريق اللي على قبل كان جيران يعني وضدنا جيران الحدود
meel dagaal ka soo gashay waa meel dagaal darooga iyo dagaal baa laga soo geliyaa oo yemeniin baa soo marto ama darooga soo waxaan ula haystaa ama ka dagaalanta lagu haysta subax sheegay mudane madaxweyne shaqana ku malgin mudane ra'iisul wasaare shaqana ku malgin arrimahaas shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nin wili bari dhexdaas maxkamadda aan isku aragno wiil bilaa micnaa baa lagu xukumayaa dowladihiinu doodaan oo maalaha shan dowladihiinu ay iga sii daayaan waxaan kala hayaa arrimo kale oo sir baan hayaa aan ka hadlaya inkastoo fideogu idinka dib u socdo sir saa u weyn maaha mudane madaxweyne sir waaweyn kama hadlano laakiin aad baan idin salaamaynaa waxaa ka mid ah arrimaha cudurka keliya jeel qayb kaloo nagu degan oo la yidhaahdo qaybta shanaad oo ku dhacay dad carab ah ku xiran mudane madaxweyne waxaa lagu yidhi mudane ra'iisul wasaare ku dhinta shalay sheeko sir ay soo gaadhay waxay ahayd aniga axmed ahaan soo gaadhay 55 inay marayso dhaawac meesha ku jira ay cudurku ku dhacay baan u jeedaa cuntada baa loo geeyaa dhakhtar lama geeyo annagana hadduu berri nagu dhaco afrikaan etoobiyaan nagula jira hadduu berri nagu dhaco cuntada halkaas weli uuba nahayaaba qaarkeen uu nahaya anigaas kula hadlaya inuu igu dhacay baan u malaynayaa 10 cisho ma aanan mudane ra'iisul wasaare dhammaan golaha baarlamaanka waan idin salaamaynaa meeshan waxaan rabnaa dowlad ahaan baan nagu sii deyn karnaa dowlad ahaan inaan nagu soo deysaan oo meeshaan naga soo deysaan malahan hawlahan inaad gashaan sida ugu dhaqso badan way ku dhibaataysan yihiin hadday wasiirada dhalinyarada aragtana waxaan rajaynaynaa ما شاء الله وان سو غابيننا هذا كان سو غابيننا انتن وان هل كان قرفد او ودا دغن بسم الله الرحمن الرحيم والله وسيله dhalinyarada ku sheegeen meeshan dhibaato xun baa ka jirta waxa weeye xilliga kolera uu dhacay ilaa hadda waan isku xareysanahay wax aadala male dawo xitaa fiican male warka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala baaqayga inaad kasoo jawaabtaan dee xil baa idin saaran dadka xilkiisa ka saaran yahay baana waxa weeye arrintaas aada xil isaga saaran dad fara badan oo dulman baa jira dad waxaa jira dembi dadka inta badan horta waaba dulman yihiin sidoodayba ku dulman yihiin xuquuqaan akal iyo biyo iyo sharaab ahayna male xuquuqul insaankii kale meesha waa ka tegey waanu yaabanahay shahaadana ku waalan dadka xanuunsani dawana ma helaan sida eyga loo dhaqmo wax dawo ay leeyihiin male alla kuma madax xanuun baan lanahay cida wax kale sida marka insha allahu tacaala arrintaa kasoo jawaaba insha allah خير ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم كون waa Soomaalida ku jirta jeelka Sacuudi Carabiga gaar ahaan mandaqada Najraan bal waxaan ku la hadlaynaa daahir oo waa maasan tahay waxaan ka mid ahay mas'uuliyiinta ku jirto amba maxaabiista ku jirto jeelka Najraan waxaan tabanaynaa cilado badan oo maxaan ku raadayay dhibaato badan baa ka jirto cudurkii waa nagu dhacay oo waan hayaa kaleeto dad badan oo waxaa jira jeelka ku waashay oo waxa weeyaan la dilo waxaa kaloo jirto dad waxa weeyaan xukun la'aan 7 sano 5 sano iska dhex fadhiyo arrimahaas oo dhan iyo cabashadaas oo dhan waxaan gudbinaynaa madaxda dawladda Soomaaliya iyo waxa weeyaan mas'uuliyiinta iyo waxa weeyaan cidda ay khusayso inay wax ka qabato dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baan nahay oo waxa weeyaan meesha ku dhibaataysan inay arrimahaanadan cidda khusayso oo maxaan ku raadayay Soomaalinimo ah arrimahaana si bilaadino loo galo ayaan rajaynaynaa cid kasta oo daawatana waxaan leenahay si gaarsi cidda ay khusayso iyo madaxda Soomaaliya aad baa idin salaamaya ما شاء الله ما شاء الله waxaan nahay dhalinyar ku jirta jeelka muddo in badan ah ku jirtay ma naqaano dal shisheeyaan ku jira ma naqaano maxaan ku raadayay meel aan maxaami ka qabsano af carabi ma naqaano cid noo doodo oo maxaami noo qabata ma haysano in badan waan soo cabanay waxaana la tabar inaan kamaradaas ka soo duubno in badan waan soo cabanay dil baan ku xukumanahay intayada u badan dil baan ku xukumanahay waxna lagu xukumay in wax lagu xukumay oo maxaan ku raadayay dadka dembiyada annagana loo haysto la midka loo haysto dadka dembigaas qalto lagu haysto maxaamiyay qabsadaan waa intooda badan waa dad carabo waa dad maxaan ku raadayay qaabka maxaamil loo qabsada yaqaana waa dad af carabiga yaqaana annaga Soomaali baan nahay ma naqaano qaab meel aan maxaamil u marra ma naqaano dhibabkaasaan haysta maxkamadda markana la geeyo waxba lama weydiiyo meeshan suulka saaran baan ilaa meeshan suulka waan saaraa waana ku qasbanaa inaan suulka saaro haddaan saaro weynana waana la garaacaya ما شاء الله هذا كور ما أنا أذكر سفارة موجود مع جالك السعودية العربية تسديد سنة كتيرة أنت الدولة دن محنكر على نبض ينول أي ودك قبضتي أنا بأرجع محنكر على سفارة يلا دقائق دول نمو أو نسوي رجالي إن كستهم هالمرنوي ماذي
waxaan rabnaa cidda koofi hadal hay أنا هذا waxaan salaamay dhamaan ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka ugu horeeya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre waxaan salaamayaa wasiiradda dhalinyarada isboortiga waxaan salaamayaa wiilka sargaal ah oo masaaciday asna dhammaan ummadda Soomaaliyeed xubnaha dawladda ciidamada golaha baarlamaanka wasiirada dhammaan waan salaamayna horta annaga soo deyn waxaan ka rabnaa ilaahay baa horta wax soo daaya dawladda federaalka badanaa maxaabiista soo deynaysay intaad idinka hadda joogteen mudan madaxweyne محمد عبد الله فرماجة كذا الوزارة خير محافظ ولن بسوي بيسين تاسنا وين المسؤولين أنا قلنا دانا محافظ تقول كان جرام كثيرا هذا وقت ولن بني مسؤولين سيد عبد الصاب شيء مركز اللي ينضوطي من مسؤول النويم أيانا الوين لقيت شو مدة السنة ذا وحاول كثيرا حبس يعني صومالي تقول كنت مجاريا لما أنت تقول كذا سديت محل حكم من هيدي مرة رنا وصوت وبني دل بلا معنى أو ميل لور على هين يعني دل ليس كي دم بيان الله هين الطريق بدنا صومالي وحي كسر قالين طريق اللي على قبل كان جيران يعني وضدنا جيران يشدوده meel dagaal ka soo gashay meel dagaal darooga iyo dagaal baa laga soo geliyaa oo yemeniin baa soo marto ama darooga soo waxaan ula haysaa ama ka dagaalantan lagu haysta suudaa sheegay mudan madaxweyne shaqan ku malkin mudan ra'iisul wasaare shaqan ku malkin arrimahaas shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nin wili bari dhaxdaas maxkamadda aan soo arnay wiil bilaa micnaa baa lagu xukumayaa dawladihiinu doodaan oo maalaha shan dawladihiinu ay iga sii daayaan waxaan kala hayaa arrimo kale oo sir baan hayaa aan ka hadlayaa inkastoo fiidiyowgu idinka ku socdo sir saa u weyn maaha mudan madaxweyne sir waaweyn kama adkayno laakiin aad baan idin salaamaynaa waxaa ka mid ah arrimaha cudurka keliya jeel qayb kaloo nagu dhegan oo la yidhaahdo qaybta shanaad oo ku dhacay dad caraba ku xiran mudan madaxweyne waxaa lagu yidhi mudan ra'iisul wasaare ku dhinta shalay sheeko sida ay soo gaadhay waxay ahayd aniga ahmed ahaan soo gaadhay 55 inay marayso dhaawac meesha ku jira cudur ku dhacay baan u jeedaa cuntada baa loo geeyaa dhakhtar lama geeyo annagana hadduu berri nagu dhaco afrikaan etoobiyaan nagula jira hadduu berri nagu dhaco cuntada halkaas weli uba nahayaaba qaarkeen uu nahaya aniga kula hadlay inuu igu dhacay baan u malaynayaa 10 cisho ma anag mudan madaxweyne mudan ra'iisul wasaare dhammaan golaha baarlamaanka waan idin salaamaynaa meeshaan waxaan rabnaa dawlad ahaan baan nagu sii geyn karnaa dawlad ahaan inaan nagu soo deysaan oo meeshaan naga soo deysaan hawlahan inaad gashaan sida ugu dhaqso badan way ku dhibaataysan yihiin hadday wasiirada dhalinyarada aragtana waxaan rajaynaynaa ما شاء الله وان سو قابلنا هذا اللي سو قابلنا انت وان هل كان قرفت او ددقن بسم الله الرحمن الرحيم والله وسيله dhalinyarada ku sheegeen meeshan dhibaato xun baa ka jirta waxa weeye xilliga kolera uu dhacay ilaa hadda waan isku xareysanahay wax hadal ma leh dawo xitaa fiican ma leh warka waxaan fiirinaa insha Allah taala baaqayga inay soo jawaabtaan xil baa saaran dadka xilkiisa ka saarayaan baana waxa weeye arrintaas aad xil isaga saaran dad fara badan oo dulman baa jira dad waxa jira dambi dadka inta badan horta waa dulmayeen sidooday ku dulmayeen xuquuq aan akadiyo biyo sharaf ayna ma leh xuquuqul insaanka kala meesha waa ka tagay ama yaabana shahaadana ku waalan dadka xanuunsan dawana ma helaan sida ayga loo dhaqmo wax dawo ay leeyihiin male Allah kuma madax xanuun baan laana cid wax kale sida marka insha Allah taala arinta ka soo jawaab insha Allah خير ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم كون waa Soomaalida ku jirta jeelka Sacuudi Carabiga gaar ahaan mandaqada Najraan bal waxaan ku la hadlaynaa daahir oo waa maasan tahay waxaan ka mid ahay mas'uuliyiinta ku jirto amba maxaabiista ku jirto jeelka Najraan waxaan tabanaynaa cilado badan oo maxaan ku dhaaday dhibaato badan baa ka jirto cudurkii waa nagu dhacay oo waan hayaa takaleeto dad badan oo waxaa jira jeelka ku waashay oo waxa weeyaan la dilo waxaa kaloo jirto dad waxa weeyaan xukun la'aan 7 sano 5 sano iska dhex fadhiyo arrimahaas oo dhan iyo cabashadaas oo dhan waxaan u gudbinaynaa madaxda dawladda Soomaaliya iyo waxa weeyaan mas'uuliyiinta iyo waxa weeyaan cidda ay khusayso inay wax ka qabato dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baan nahay oo waxa weeyaan meesha ku dhibaataysan inay arrimahaanadan cidda khusayso oo maxaan ku raadayay Soomaalinimo ah arrimahaana si bilaadino loo galo ayaan rajaynaynaa cid kasta oo daawatana waxaan leenahay si gaarsi cid ay khusayso iyo madaxda Soomaaliya aad baa idin salaamay ما شاء الله ما شاء الله waxaan nahay dhalinyar ku
ku jirta jeelka muddo in badan ah ku jirtay ma naqaano dal shisheeyaan ku jiraa ma naqaano maxaan ku rahdaayay meel aan maxaami ka qabsanno af carabi ma naqaano cid noo doodo oo maxaami noo qabata ma haysano in badan waan soo cabannay waxaana la tabar inaan kamaradaas ka soo duubno in badan waan soo cabannay dil baan ku xukumannahay intayada u badan dil baan ku xukumannahay waxna lagu xukumay in wax nalagu xukumay oo maxaan ku rahdaayay dadka dembiyada annaga naloo haysto la midka loo haysto dadka dembigaas kolta lagu haysto maxaamiyey qabsadaan waa intooda badan waa dad caraba waa dad maxaan ku rahdaayay qaabka maxaami loo qabsada yaqaana waa dad af carabiga yaqaana annaga Soomaali baan nahay ma naqaano qaab meel aan maxaami u marra ma naqaano dhibabkaasaan haysta maxkamadda markana la geeyo waxba nalama weydiiyo meeshan suulka saaran baan ilaa meeshan suulka waan saaraa waana ku qasbanaa inaan suulka saaro haddaan saaro weynana waana la garaacaya ما شاء الله هذا كورمان أنا أكتشف سفارة موجود مع جالك السعودية العربية تسديد سنة كتيرة أنت الدولة دن محنقر على نبض ينول أي ودك قصتي أنا بأرجع محنقر على سفارة دقائق دولة نمو أو نسوي رجالي إن كستهم هالمرنوي ماذي وحرمنا عدة كل في هذا اللايف أنا هذا waxaan salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka ugu horeeya madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre waxaan salaamayaa wasiiradda dhalinyarada isboortiga waxaan salaamayaa wiil kale oo sarkaal ah oo saaciidiyadna dhammaan ummadda Soomaaliyeed xubnaha dawladda ciidamada golaha baarlamaanka wasiirada dhammaan waan salaaminaa horta annaga soo deyn waxaan ka rabnaa ilaahay baa horta soo daaya dawladda federaalka badanaa maxaabiista soo deynaysay intaad idin hadda joogteen mudan madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo كذا الوزارة خير محافظ بلند سعوديين خاصنا وين نسوقين أنا دانا محافظ تقول كان جرام كذا هذا وقت بلند بني نسوقين سيد عبد الصاب شيء مثل اللي ندوتيه من وسيلة نوين أيانا نوين لقيت مدة سنة وحاول كذا حبس يعني Soomaaliya boqol konton gaarayaan dhammaantood boqolkiiba 8 waxaan ku kulmay dib mar horena oo soo kulmay dil bilaa macna oo meel loo raac lahayn yani dil leeyahay dambi aan lahayn iyo dariiq badanaa Soomaalidu waxay ka soo galeen dariiq la yiraahdo gobolka Najraan yani wadada Najraan ee xuduuda meel dagaal ka soo gashay meel dagaal darooga iyo dagaal baa laga soo geliyaa oo Yemeniin baa soo marto ama darooga soo waxaan ula haysan ama ka dagaalanta lagu haysta subax sheegay مدن مدحوين شقنا كملهم مدن رئيس وزراء شقنا كملهم arrimahaas shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa min wili bari dhaxdaas maxkamadda aan soo arnay wuxuu bilaa micnaa baa idin ku xukumayaa dawladihiinu doodaan oo maalaha shan dawladihiinu ay idiga sii daayaan waxaan kala hayaa arrimo kale oo sir baan hayaa aan ka hadlaya inkastoo fideogu idinka ku socdo sir saa u weyn maaha muddo madaxweyne sir waaweyn kama hadlo laakiin aad baan idin salaameynaa waxaa ka mid ah arrimaha cudurka keliya jeel qayb kale lagu dhigan oo la yiraahdo qaybta labaad qaybta shanaad oo ku dhacay dad carab ah ku xiran muddo madaxweyne waxaa lagu yiri muddo ra'iisul wasaare ku dhinta shalay sheeko sir ay soo gaadhay waxay ahayd aniga ahaan soo gaadhay 5 inay marayso dhaawac meesha ku jira cudurka ku dhacay baan u jeedaa cuntada baa loo geeyaa dhakhtar lama geeyo annagana hadduu berri nagu dhaco Afrikaan Ethiopiana nagula jira hadduu berri nagu dhaco cuntada halkaas weli uu banahayaa qaarkeen uu nahayaa aniga sula hadlay inuu ugu dhacay baan u malaynayaa 10 cisho ma annaga wala madaxweyne muddo ra'iisul wasaare dhammaan golaha baarlamaanka waan idin salaameynaa meeshan waxaan rabnaa dawlad ahaan baan nagu sii deyn karnaa dawlad ahaan inaan nagu soo deysaan oo meeshan naga soo deysaan dhammaan hawlaha inaad gashaan sida u dhaqso badan way ku dhibaataysan yihiin haddii wasiirada dhalinyarada aragtana waxaan rajaynaynaa ما شاء الله وان سو غابيننا هذا كان سو غابيننا انتن وان هل كان قفد او ودا دغن بسم الله الرحمن الرحيم والله وصل dhalinyarada ku sheegeen meeshan dhibaato xun baa ka jirta waxa weeye xilliga kolera uu dhacay ilaa hadda waan isku xareysanahay waxa hadal ma leh dawo xitaa fiican ma leh warka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala baaqayga inay ka soo jawaabtaan xil baa saaran dadka xilkiisa ka saaraya baana waxa weeye arrintaas aad xil isaga saara dad fara badan oo dulman baa jira dad waxaa jira dambi dadka inta badan horta waa dulmayeen sidooda ku dulmayeen xuquuqan akaliya biyo sharaab ayna male xuquuqul insaanki kala meesha waa ka tagay waan yaabana shahaadana ku waalan dadka xanuunsan dawana ma helaan sida ayga loo dhaqmo wax dawo ay leeyihiin male الله كم الله حنون بالله نعيد ما كان كذا
marka insha allahu tacaala arrintaa kasoo jawaaba insha allah خير إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم waa Soomaalida ku jirta jeelka Sacuudi Carabiga gaar ahaan mandaqada Najraan bal waxaan ku la hadlaynaa daahir oo waa mahadsan tahay waxaan ka mid ahay mas'uuliyiinta ku jirto amba maxaabiista ku jirto jeelka Najraan waxaan tabanaynaa cilado badan oo maxaan ku dhaabay dhibaato badan baa ka jirto cudurkii waa nagu dhacay oo waan hayaa kaleeto dad badan oo waxaa jira jeelka ku waashay oo waxa weeyaan la dilo waxaa kaloo jirto dad waxa weeyaan xukun la'aan 7 sano 5 sano iska dhex fadhiyo arrimahaas oo dhan iyo cabashadaas oo dhan waxaan gudbinaynaa madaxda dawladda Soomaaliya iyo waxa weeyaan mas'uuliyiinta iyo waxa weeyaan cidda ay khusayso inay wax ka qabato dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baan nahay oo waxa weeyaan meesha ku dhibaataysan inay arrimahaanadan cidda khusayso oo maxaan ku raadayay Soomaalinimo ah arrimaana si bilaadino loo galo ayaan rajaynaynaa cid kasta oo daawatana waxaan leenahay si gaarsi cid ay khusayso iyo madaxda Soomaaliya aad baa idin salaamay ما شاء الله ما شاء الله waxaan nahay dhalinyar ku jirta jeelka muddo in badan ah ku jirtay ma naqaano dal shisheeyaan ku jira ma naqaano maxaan ku raadayay meel aan maxaami ka qabsano af carabi ma naqaano cid noo doodo oo maxaami noo qabata ma haysano in badan waan soo cabanay waxaana la tabaro inaan kamaradaas ka soo duubno in badan waan soo cabanay dil baan ku xukumanahay intayada u badan dil baan ku xukumanahay waxna lagu xukumay in wax lagu xukumay oo maxaan ku raadayay dadka dembiyada annagana loo haysto la midka loo haysto dadka dembigaas qalto lagu haysto maxaamiyay qabsadaan waa intooda badan waa dad carabo waa dad maxaan ku raadayay qaabka maxaami loo qabsada yaqaana waa dad af carabiga yaqaana annaga Soomaali baan nahay ma naqaano qaab meel aan maxaami u marra ma naqaano dhibabkaasaan haysta maxkamadda markana la geeyo waxba lama weydiiyo meeshan suulka saaran baan ilaa meeshan suulka waan saaraa waana ku qasbanay inaan suulka saaro haddaan saari weynana waana la garaacayaa ما شاء الله هذا كور ما أنا أذكر سفارة موجود مع جالك السعودية العربية تسديد سنة كتيرة أنت الدولة دن محنكر هذا نبض ينول أي ودك قبضتي أنا بأرجع محنكر هذا سفارة يا دقائق دولة نمو أو نسوي رجالي إن كستهم هالمرنوي ماذي وحرمنا عدة كل في هذا الهاي أنا هذا waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka ugu horeeya madaxweynaha Maxamed Abdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre waxaan salaamayaa wasiiradda dhalinyarada isboortiga waxaan salaamayaa wiil kale oo sargaal ah oo saaciidiyadna dhammaan ummadda Soomaaliyeed xubnaha dawladda ciidamada golaha baarlamaanka wasiirada dhammaan waan salaamaynaa horta annaga soo deyn waxaan ka rabnaa ilaahay baa wax soo daaya dawladda federaalka badanaa maxaabiista soo deynaysay intaad idin hadda joogteen mudan madaxweyne محمد عبد الله فرماجة كذا الوزارة خير محافظ بدن بس ودي سين تاسنا وين يسوي إن أنا جنا دانا محافظ تقول كان يجرون كران هذا وقت بدن بني يسوي لي سيد عبد الصافي شيء مركز اللي ينتظر من رسول النويم أيانا الوين لقيت شو مدة السنة ده وحاول كذا حبس يعني Soomaaliya boqol konton gaarayaan dhammaantood boqolkiiba 8 waxaan ku kumanay dil mar horena oo soo kulmay dil bilaa micno oo meel loo raac lahayn yani dil la isleekay dambi aan lahayn iyo dariiq badanaa Soomaalidu waxay ka soo galeen dariiq la yiraahdo gobolka Najraan yani wadada Najraan ee xuduuda meel dagaal ka soo gashay meel dagaal darooga iyo dagaal baa laga soo geliyaa oo Yemeniin baa soo marto ama darooga soo waxaan ula haystaa ama ka dagaalantan lagu haysta baa sheegay مدن مدحوينه شقنا كملكين دور رئيس وزراء شقنا كملكين arrimahaas shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nin wili bari dhaxdaas maxkamadda aan iska arnay wuxuu yiri bilaa micna baa idin kugu xukumayaa dawladihiinu doodaan oo maalaha shan dawladihiinu ay idiga sii daayaan waxaan kala hayaa arrimo kale oo sir baan hayaa aan ka hadlayaa inkastoo fiidiyowgu idinka ku socdo sir saa u weyn ma muddo madaxweyne sir waaweyn kama laakiin aad baan idin salaameynaa waxaa ka mid ah arrimaha cudurka kaliya jeel qayb kale lagu dhigan oo la yiraahdo qaybta labaad qaybta shanaad oo ku dhacay dad carab ah ku xiran muddo madaxweyne waxaa lagu yiri meel ay su'aale ku dhinta shalay sheeko sir ay soo gaadhay waxay aniga ahmed ahaan soo gaadhay 5 inay marayso dhaawac meesha ku jira cudurka ku dhacay baan u jeedaa cuntada baa loo geeyaa dhakhtar lama geeyo annagana hadduu berri nagu dhaco afrikaan Ethiopiana nagula jira hadduu berri nagu dhaco cuntada halkaas weli wuu nahayaa qaarkeen wuu nahayaa aniga isula hadlay inuu ugu dhacay baan u malaynayaa 10 cisho ma annag madaxweyne
مدرس وزارة دمان قلعة برلمان كمان سلامنا ماشي أنا حضرنا دولة أحمر نقصي دين كنا دولة هاي نقصي ديسان وماشي نقصي ديسان برلمان أول حاجة أنا بتكلم سوى أول أحسن بدل ويكون دبعة سيجين هذا وزير الدولة يرى على كان وحنا بجينا ما شاء الله وانسوق قابلنا هذا الفنسوق قابلنا انت وان هل كان قرفت او ذكر بسم الله الرحمن الرحيم والله وسيلة dhalinyarada ku sheegeen meeshan dhibaato xun baa ka jirta waxa weeye xilligii kolera uu dhacay ilaa hadda waan isku xareysanahay wax hadalla male dawo xitaa fiican male warka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala baaqayga inaad kasoo jawaabtaan de xil baa idin saaran dadka xilkiisa ka saaraya baana waxa weeye arrintaas aada xil isaga saara dad fara badan oo dulman baa jira dad waxaa jira dembi dadka inta badan horta waaba dulman yihiin sidooday ba ku dulman yihiin xuquuq aan akal iyo biyo iyo sharaab ahayna male xuquuqul insaankii kale meesha waa ka tegey waanu yaabanahay shahaadana ku waalan dadka xanuunsani dawana ma helaan sida xabaalka iyo eyga loola dhaqmo wax dawo ay leeyihiin male alla ku madax xanuun baanu laanahay cidda wax kale iska deh marka insha allahu tacaala arrintaa kasoo jawaaba insha allah خير ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم كون waa Soomaalida ku jirta jeelka Sacuudi Carabiga gaar ahaan mandaqada Najraan bal waxaan ku la hadlaynaa daahir oo waa maasan tahay waxaan kamid ahay mas'uuliyiinta ku jirto amba maxaabiista ku jirto jeelka Najraan waxaan tabanaynaa cilado badan oo maxaan ku dhaaday dhibaato badan baa ka jirto cudurkii waa nagu dhacay oo waan hayaa takaleeto dad badan waxaa jira jeelka ku waashay oo waxa weeyaan la dilo waxaa kaloo jirto dad waxa weeyaan xukun la'aan 7 sano 5 sano iska dhex fadhiyo arrimahaas oo dhan iyo cabashadaas oo dhan waxaan u gudbinaynaa madaxda dawladda Soomaaliya iyo waxa weeyaan mas'uuliyiinta iyo waxa weeyaan cidda ay khusayso inay wax ka qabato dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baan nahay oo waxa weeyaan meesha ku dhibaataysan inay arrimahaanadan cidda khusayso oo maxaan ku raadayay Soomaalinimo ah arrimahaana si bilaadino loo galo ayaan rajaynaynaa cid kasta oo daawatana waxaan leenahay si gaarsiin cid ay khusayso iyo madaxda Soomaaliya aad baa idin salaamay ma sha Allah waxaan nahay dhalinyar ku jirta jeelka muddo in badan ah ku jirtay ma naqaano dal shisheeyaan ku jira ma naqaano maxaan ku raadayay meel aan maxaami ka qabsano af carabi ma naqaano cid noo doodo oo maxaami noo qabata ma haysano in badan waan soo cabanay waxaana la tabaro inaan kamaradaas ka soo duubno in badan waan soo cabanay dil baan ku xukumanahay intayada u badan dil baan ku xukumanahay waxna lagu xukumay in wax lagu xukumay oo maxaan ku raadayay dadka dembiyada annagana loo haysto la midka loo haysto dadka dembigaas qalto lagu haysto maxaamiyay qabsadaan waa intooda badan waa dad caraba waa dad maxaan ku raadayay qaabka maxaamil loo qabsaday yaqaana waa dad af carabiga yaqaana annaga Soomaali baan nahay ma naqaano qaab meel aan maxaamil u marra ma naqaano dhibabkaasaan haysta maxkamadda markana la geeyo waxba lama weydiiyo meeshan suulka saaran baan ilaa meeshan suulka waan saaraa waana ku qasbanay inaan suulka saaro haddaan saaro weynana waana la garaacaya ما شاء الله هذا كور ما أنا أذكر سفارنا وقلت ما جالك السعودية العربية بس 10 سنة كتيرة أنت الدولة دن محنكر هذا نبض ينول أي ودك قبضتي أنا بأرجعني محنكر هذا سفارة يلا دقائق دول نمو أو نسوي رجالي إنك استوم هالمرنوي ماذي وحرمنا عدة كل في هذا الهاي أنا هذا waxaan salaamay dhamaan ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka ugu horeeyay madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre waxaan salaamayaa wasiiradda dhalinyarada isboortiga waxaan salaamayaa wiil kale oo sargaal ah oo masaaciday afna dhamaan ummadda Soomaaliyeed xubnaha dawladda ciidamada golaha baarlamaanka wasiirada dhamaan waan salaamaynaa horta annaga soo deyn waxaan ka rabnaa ilaahay baa horta wax soo daaya dawladda federaalka badanaa maxaabiista soo deynaysay intaad idinka hadda joogteen madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo كذا الوزارة خير محافظ بدن بس وديسين تاسنا وين يسوقين أنا دانا محافظ تقول كان كرام كرام هذا الوقت بدن بني يسوقين سيد عبد الصاب شيرين مثل اللي ينضبطه من وسيلة نويم أيانا لوين لقيت شو مدة السنة ده وحاول كذا حبس كان Soomaaliya boqol iyo 50 gaarayaan dhammaantood boqolkiiba 8 waxaan ku kumanay dib mar horena oo soo furnay bil bilaa macna oo meel loo raac lahayn yani bil leesay dambi aan lahayn iyo
dariiq badanaa Soomaalidu waxay ka soo galeen dariiq la yiraahdo gobolka Najraan yani wadada Najraan ee xuduuda meel dagaal ka soo gashay waa meel dagaal darooga iyo dagaal baa laga soo geliyaa oo Yemeniin baa soo marto ama darooga soo ama ka dagaalanta lagu haysta subax sheegay madaxweyne shaqan ku malkin ra'iisul wasaare shaqan ku malkin arrimahaas shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nin wili bari dhexdaas maxkamadda mushkil nafta weyn ilaa micnaa baa lagu xukumayaa dawladihiinu doodaan oo maalaha shan dawladihiinu ay iga sii daayaan waxaan kala hayaa arrimo kale oo sir baan hayaa ka hadlaya inkastoo fiidiyowgu idinka dib socdo sir saa u weyn maaha madaxweyne sir waaweyn kama hadlayno laakiin aad baan idin salaameynaa waxaa ka mid ah arrimaha cudurka keliya jeel qayb kaloo nagu dhegan oo la yidhaahdo qaybta shanaad oo ku dhacay dad carab ah ku xiran madaxweyne waxaa lagu yidhi ra'iisul wasaare ku dhinta shalay sheeko sida ay soo gaadhay waxay ahayd aniga ahmed ahaan soo gaadhay 55 inay marayso dhaawac meesha ku jira cudurka ku dhacay baan u jeedaa cuntada baa loo geeyaa dhakhtar lama geeyo annagana hadduu berri nagu dhaco afrikaan etoobiyaan nagula jira hadduu berri nagu dhaco cuntada halkaas weli uba nahayaaba qaarkeen uu nahaya anigaas kula hadlaya inuu igu dhacay baan u malaynayaa 10 cisho ma ana madaxweyne ra'iisul wasaare dhammaan golaha baarlamaanka waan idin salaameynaa meeshan waxaan rabnaa dowlad ahaan baan nagu sii deyn karnaa dowlad ahaan inaan nagu soo deysaan oo meeshaan naga soo deysaan way ku dhibaataysan yihiin hadday wasiirada dhalinyarada aragtana waxaan rajaynaynaa maasha allah waan soo gaabinaynaa hadalkan soo gaabinaynaa intan waa in halkan qofad wada degan بسم الله الرحمن الرحيم والله وسيله dhalinyarada ku sheegeen meeshan dhibaato xun baa ka jirta waxa weeye xilliga kolera uu dhacay ilaa hadda waan isku xareysanahay wax aadala male dawo xitaa fiican male warka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala baaqayga inay soo jawaabtaan dee xil baa saaran dadka xilkiisa ka saaran yahay baana waxa weeye arrintaas aad xil isaga saaran dad fara badan oo dulman baa jira dad waxaa jira dambi dadka inta badan horta waa dulman yihiin sidooda ku dulman yihiin xuquuqan akal iyo biyo iyo sharaab ayna male xuquuqul insaanki kale meesha waa ka tagay waan yaabana ashaadan ku waalan dadka xanuunsan dawana ma helaan sida eeyga loo dhaqmo wax dawo ay leeyihiin male Allah kuma madax xanuun baan lana cida wax kale sida marka insha Allah taala arrinta ku soo jawaab insha Allah insha Allah hay